السلام عليكم وأنا سود وينيا وحن آدي أبو فرحسنا ما أنت مركل إن الشوكتان عشرة ديني أينو أرجع لا أينو رنتا كبر جنني جارهان تحريني أينو ما قعدتني أرجع لا يمرتدى الصومالي لا أينو كسو قادين جنني عشر كستا مرتي الصومالي أما مهما أما أوراه الصومالي أو أينو أرجع جنني سرا أوراه لاسو قابل سنتاي أرجع لا رنتا magacaygu waa cabdi ducaale mahmaadii ugu dambeysay aynu casharkii hore kusoo baranay waxay ahayd aadane eed ma waayo maantana waxaynu baranaynaa mahmaha kale oo aad iyo aad muhiim u ah oo ay soomaalidu aad u isticmaalaan taasoo ah ballandaro waa diindaro run ahaantii intii taalkooda soomaalidu si adag bay uga mahmaaheen ballandarada marka ay leeyihiin ballandaro waa diindaro laakiinse ka waran haddii awal baa diinta aad haysatay ay ahayd mid beena maxaad ka odhan lahaydeen soomaali badan oo gaar ahaan waddamada qurbaha ama reer galbeedka ee ay gaalada ugu yeedhaan kuwaas oo aaminsan inay diintoodu u bannaynayso inay dadkaa been u sheegaan ama ku ballan furaan taasi waa cashar kale oo aynu mar kale eegayno laakiinse ereyga ilaahay runtahay wuxuu ina barayaa in ballandarradu ay xumaynayso xiriirka uu qofku la leeyahay ilaahay oo ay dembi agtiisa ka tahay iyo sidoo kale ballandarradu inay xumaynayso xiriirka ama macaamilka aynu dadka kale la leenahay aakhirkana ay noo keenayso sharaf darro iyo khasaare if iyo aakhirana ay noo soo jiidayso bini aadanka haddaynu eegno walaalayaal ballantu uu samaysto bini aadamku dhinacyo badan bay leedahay ballanta ugu yar laba qof geli karaan waxa weeye qof kugula ballamo waqti gaara meel oo yaada war meesha ay isugu keenkeen waa ballanta ugu yar laakiinse waxaa jira kuwa kasii ballaaran oo ay laba qof ama in ka badani geli karaan sida heshiis la kala seexday hadday noqoto baayac mushtar laba qof ka dhexeeya hadday noqoto nabadeyn iyo hadday noqoto wada shaqaynba waxaa dhici karta soomaalidu inaanay sidaa u haysan laakiinse waxaa la odhan karaa ballamaha bini aadamku galaan kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid a marka ay ballanta ay wada galaan laba qof oo lamaano ah ama isqaba ama isguursaday kuwaasoo ku ballama inay isdoorteen kuwaasoo ku ballama inay qoys wada dhistaan kuwaasoo ku ballama inay nolosha isla qaybsadaan haddii ay tahay dhib iyo dheef mid kastoo ay tahayba oo ay weligood isla noolaadaan waa sida ay masiixiyiintu qabaan at least ama ay tahayba markaa ballamada bini aadanka geli karaan way badan yihiin waxaa ballanta aynu bini aadanka la gallo kasii muhiimsan oo kasii weyn oo soo raaca ballanta innaga iyo ilaahay inaga dhexaysa ballanqaad ayaynu samaynaa oo nidarro ayaynu magaca ilaahay ku gallaa dhaar baynu marnaa oo waxaynu ku marnaa magaca ilaahay laakiinse ilaahay nidarrada ama dhaaraha aynu magaciisa ku gallay marna ma yaraysanayo oo ma oggolaanayo in magaciisa quduuska lagu ciyaaro ama lagu kajabo wuxuuse doonayaa in magaciisa la siiyo maamuuska uu qalmo oo aynu ballamaha aynu gallay fulino towreeddii nebi muuse kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka 5 aayadda 11 digniintan ayuu ilaahay ku bixinayaa waa inaanad magaca rabbiga ilaahaagaa si beena u soo hadal qaadin waayo rabbigu eedlaawo u haysan maayo kii magaciisa si beena u soo hadal qaada hadalqaad xataa dhaarta iska dhaaf magaca ilaahay si beena ama si ciyaara ama si bilaa macnaha ha u soo hadal qaadina ayaa ilaahay halkan inoogu amrayaa been ha u soo hadal qaadin ha noqoto ballan ama nidar aynu ilaahay laftiisa u gallay ereyga ilaahay kitaabka sharciga ku noqoshadiisa ee towreedda nebi muuse 5 kitaab ee nebi muuse ka 5aad waxaa ku qoran cutubka 23aad aayadaha 22 ilaa 23 waxaa ku qoran oo markaad rabbiga ilaahayna nidar ama ballan u nidartaan ama u ballan qaadaan waa inaydan ka raagin inaad waxaas bixisaan waayo rabbiga ilaahayna hubaal kaas wuu idin weydiin doonaa oo dembi buu idinku noqon doonaa laakiinse haddaydan nidar gelin taasu
dembi idinkuma ahaan doonto wax alla wixii afkiina ka soo baxay waa inaad dhowrtaan oo yeeshaan sidaad rabbiga ilaahayna ugu nidartiin oo wixii aad ikhtiyaarkiina afka uga ballan qaadeen waa inaad bixisaan ilaahay halkan wuxuu ku leeyahay haddaydan ballan nidarka aad ilaahay u gasheen haddaydan bixin karin ama aad ka soo bixi karin marka horeba nidar ha gelina laakiinse waa inaad doortaan waayo ilaahay weliba waa inaadan ka raagin ayaa ku qoran ma aha inaad nidartid waxaad bixisid oo aad tidhaahdid insha allah ama laakiin wixii aad ilaahay u bixiso hadda waa inaad hadda samaysaa ama ilaahay nidarkii aad ilaahay u gasho weliba ikhtiyaarkiina aad ku gasheen ayaa ilaahay leeyahay ilaahay inaguma khasbayo inaynu nidar gallo marka magaca ilaahay been ha ku soo hadal qaadina ayaa halkan ku qoran ha noqoto nidar ama ballan aad ilaahay u gasheen labo ama ha noqoto dhaar aad magaca ilaahay aad ku gasheen ereyga ilaahay kitaabka laawiintii oo ah towreeddii nebi muuse 5 kitaabka 3 waxaa ku qoran waa inaydnaan magacayga ilaahay baa odhanaya been ugu dhaaran iyaydnaan hadal nijaasa ka sheegin magaca ilaahayna waayo aniga ayaa rabbiga ballan haddaynu magaca ilaahay ku gallo oo aynaan fulin waxay ka dhigan tahay magaca ilaahay inaynu nijaasaynay taasna dembi ka xun ma jiro axdiga cusub haddaynu nimaadno ciise masiix wuxuu ina barayaa injiilka inaynaan dhaaranba oo nidarba gelin ayuu ciise masiix ayuu ina barayaa injiilka sida uu mataayo su qoray cudubka 5 aayadaha 3 ilaa 7 ciise masiix wuxuu yidhi waad maqasheen in kuwii hore lagu yidhi kuwii hore wuxuu ka wadaa aayadihii hadda aynu soo qaadanay towreedda ayuu dib u tixraacaya waad maqasheen kuwii towreedda in lagu yidhi nebi muuse waa inaadan nidaradaada jebin laakiin waa inaad rabbiga u yeeshaa nidaradaada laakiin waxaan idinku leeyahay ciise masiix awood buu lahaa inuu dadka ku baro ereyga ilaahay isaga ayaa ereyga ilaahay ahaaba laakiin waxaan idinku leeyahay ha dhaaranninaba jannada ha ku dhaaranina waayo waa carshiga ilaah dhulkana ha ku dhaaranina waayo waa meeshuu cagihiisa dhigto yeruusaalem ha ku dhaaranina waayo waa magaaladii boqorka weynaa madaxaaga ha ku dhaaran waayo tin keliya kama dhigi kartid caddaan ama madow laakiin hadalkaagu ha ahaado haa maya intaa ka badan ayaa sharku ka yimaadaa ciise masiix halkan wuxuu ku sheegay haba dhaaranba yani wax kugu khasbaya inaad dhaaratid ama nidar gashid ma jiro laakiinse wixii aad samaynayso ama wixii aad odhanaysa wixii aadan samayn karin waan samayn karaa samee wixii aadan samayn karin maya ma samayn karo walaalayaal maanta soomaalida markaad eegtid magaci ilaahay wuxuu ka dhex noqday wax bilaa macno ah ama sicir barar bay ku rideen magaca ilaahay haddii si kale loo yidhaahdo wadaad kasta oo argagixisaa qabyaaladiste kasta siyaasi kasta oo tuug ah oo hantidii dadka ku naaxay mid kasta oo baayac mushtara oo dhigmiirada mid kasta oo social mediaha ka caytama wuxuu markuu hadlayo ku bilaabayaa magaca ilaahay bal adigu youtube-ka eeg ama social mediaha eeg qof walba oo soomaaliya wax kasta ha sameeyo magaca ilaahay buu ku bilaabaya markaasuu wuxuu u gelayaa cayn iyo habaar iyo qabyaalad iyo been iyo nacayb kuwacdi iyo wax lamida dadka noocaasi waxay ka mid yihiin dadka uu ilaahay ereygiisa inoogu sheegay isagoo leh dadkanu way ii soo dhowaadaan oo afkooda iyo bishmahooda ayay u maamuusaan laakiin qalbigoodu way iga fogeeyeen oo cabsida ay iga qabaanna waa amarka dadka laga bartay ilaahay ay ka cabsanayaan ee ay maamuusayaan ma aha ilaahay inay iyagu shakhsiyan ka cabsanayaan laakiin dadka ay isleeyihiin iyay idin arkin oo dadka istusaya ayuu ilaahay ka wadaa walaalayaal ilaahan runtaahay uma baahna inaynu laalushno ama ammaan beena aynu waxa ingiriiska lagu yaqaano flattery inaynu samayno ilaahay ku samayno ama suubaa salaax uma baahna ilaahay waa quduus wuu isku kalsoon yahay inaad maanta oo dhan magaciisa been ugu celisid adoo istusaya uma baahna ahdigii hore xataa wadaadadu hadday magaca ilaahay been ku soo hadal qaadaan ama si ciyaara way dhiban jireen wadaadka
meelo badan ayay beebelka kaga qoran tahay tobankii qaynuun ee nebi muuse towreeddii lagu siiyey ayaana tusaya muhiimadda iyo weynaanta iyo quduusnimada uu ereyga uu ilaahay magaciisu leeyahay iyo inaynay ahayn inaynu ilaahay magaciisa ciyaar u soo qaadno gaar ahaan marka laga hadlayo ballamada aynu ama nidarada aynu magaca ilaahay ku gallo marka laga hadlayo dhaaraha aynu ilaahay magaciisa ku dhaaranayno iyo marka laga hadlayo ilaahay magaciisa inaynan si iska hadala u soo hadal qaadinba oo sheeko kasta ku soo darin oo bilaa macno ah waxaa labada qodob ee tobanka qodob ugu horeeya tobanka amar ee nebi muuse la siiyey ama qaynuun labada qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa aniga mooyaane ilaahyo kale waa inaadan lahayn ka labaadna wuxuu ahaa waa inaanan samaysan sanam xardhan ka saddexaad eeg muhiimadda ay leedahay magaca ilaahay inaan been lagu soo hadal qaadin wuxuu odhanayaa ereyga ilaahay baxniinta cutubka 20aad aayadda 7 waa inaadan magaca rabbiga ilaahaaga si beena ugu hadal qaadin waayo rabbigu eedlaawe u haysan maayo kii magaciisa si beena u soo hadal qaado ilaahay tobanka ay ku salaysan tahay diimaha samaawiga oo dhan tobanka amar ay ku salaysan yihiin qodobkiisa saddexaad ayaa ah waa inaadan magaca ilaahay been ama si ciyaara ku soo hadal qaadin saabu magaca ilaahay sharaf u leeyahay markaa ballandarradu walaalayaal way ka weyn tahay diin darro laakiinse waa ilaahay oo lagu dambaabo maadaama magaciisa quduuskaa lagu been abuurtay maadaama magaciisa quduuskaa lagu ciyaaray maadaama magaciisa quduuskaa lagu kajabay maadaama magaciisa quduuskaa la nijaaseeyey marka walaalayaal ka digtoonaada inaad ilaahay iyo bini aadanka ballamo aynan fulinayn u gashaan sida ciise masiix uu injiilka inugu yidhi sidaynu hadda soo akhrinay ee ku qoran injiilka sida uu Mataayo soo qoran cutubka 5aad aayadda 37aad hadalkiinu ha ahaado ha maya wixii intaas ka badan ayuu sharku ka yimaadaa ilaahay ha inaga dhigo kuwa ilaahay hortiisa isku kalsoonaanta ku yeesha oo odhan kara sidii nebi daawud ugu yidhi sabuuradii cutubka 89aad aayadda 34aad oo uu yidhi ahdigayga ma jabin doono oo wixii afkayga ka soo baxana ma bedeli doono waad maasantiin ilaahayna hayr